عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waa goobjoog ku soo dhawaada waraysi gaar oo aan la yeelanayno gudoomiyaha kudlada musharaxiinta dhexaadka ahna musharax madaxweyne Umar Cabduqaadir Axmed Fiqi. ku soo dhawow mudan goobjoog. waa mahadsantahay adiga iyo tiimka goobjoog. su'aasha ugu horeysan ku weydiinay waxay noqonaysaa marka hore ee kudladiinu maxay tahay maxaana loo dhisay. kudladan waxay ka kooban tahay musharaxiin Soomaaliyeed oo aqoon-yahana oo khibrad dheer leh wadankana muddo dheer ka soo shaqeynayay. marka maadaama ay musharaxiin yihiin kudladan inaan u sameeyno waxay sabab u tahay inay isku aragti dhow yihiin inay fikirkoodu isu dhow yahay marka sidaa daraadeed inay mideeyaan aragtidooda ay isku dhawaanta iyo xoogooda iyo dadaalkooda si ay insha Allah taala ay u noqdaan dad u istaagay dalkooda. waxaan rajaynaynaa mid ayaga kamid ah inuu ku guuleysan doono xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya doorashadu hadii ay dhacdo insha Allah taala. marka runtii waa dad aqoon-yahana fikradooda isu dhowdahay aragtidooda isu dhowdahay aaminsanna in wadanka xaaladiisa wax laga bedelo aqoon dheer oo aqoon durugsan u leh xaaladda wadanku hadda ku jiro iyo wixii taariikhda siyaasadda Soomaaliya ay soo martay aanuna isleenahay waa dad ku haboon inay wax ka bedelaan dalka. waayahay sidee dhexaad u noqon kartaan marka maadaama xilka raadinaysaan uu yahay kursi ugu sareeya dalka. runtii dhexaad macnaheedu waxa weeyaan waa laba qodob. qodob waxa weeyaan dhexaad waxaan labada kooxood ee hadda aad loo yaqaan oo kooxna ay tahay qolada hadda xukunka joogta ayagoo muddaxiloodkoodii dastuuriga ah u dhacay iyo madasha musharaxiinta oo dadku aad u yaqaaniin oo u badan dad xilal sare dalka soo qabtay oo aan moodo inay si aad ah labadaas u tartamaan. marka waxay marta koow tahay labadaas kooxood midna lama jirno oo dhexaad baan nahay. midda labaadna waxa weeyaan aragti ahaan iyo fikir ahaan iyo waxaanu aaminsanahay waa aragti dhexdhexaad oo aan xaq jir ahayn oo aan marnaba ogolayn in la diriro in qoryo la qaato in dadku isdilaan dagaal sokeey in la aado iyo in dictatoriyad iyo xukun musuqmaasuq iyo fashilaad ku soo jiray muddo dheer aan la sii wadinin. marka waa fikrad dhexdhexaad ah oo Soomaalidu aan isleenahay maanta waxay u baahan tahay meel dhexdhexaad ah oo dadku ku midoobi karaan kuna soo ururi karaan aragti ah in la abuuro. waayahay ma kursi madaxweynaha aan ahayn oo dhaxal laga noqon karo miyaa jira. marka waxaan rabnaa dhexdhexaadnimada macnaheedu waxa weeyaan in mar walbaba laga qayb geliyo bulshada qaybaheeda kala duwan aragtida siyaasiga ah oo cod ku yeeshaan bulshada inteeda ballaaran si fikirkooda looga soo dhex saaro aragti dadkoo dhan ku wada qanci karaan. waayahay marka maxaad uga dhex baxdeen musharaxiinta kale ee u tartamaya xilka madaxtinimada ee dalka. annagu kama aan dhex bixinin annagoo joogna ayaa madashaasi abuurantay maadaama madashaasuna dadka ugu badan ay yihiin dad wadanka hore uga soo shaqeeyay xilal sarsare soo qabtay dad wasiiro ahaa waxaanu isnira annaga maadaama dad cusub tihiin oo aragti cusub wata oo fikir cusub wata waxay ku haboon tahay intiina cusub inay isbiirsataan oo aragtidiinu isu dhowdahay laakiin colaad ma jirto madasha musharaxiinta iyo annaga naga dhaxaysa. sidee u aragtaa dawladda waqtigeeda dhamaaday ee weli ka sii jirta dalka ay sii maamulaysa. arrintaas waa arrin runtii aan la aqbali karin waa arrin sharci darro ah waayo dawladnimadu waxay ku salaysan tahay sharci iyo dastuur. haddii mas-uuliyaddii dadku u dhiibteen xilka dadka haya muddadoodu ka dhammaato waxay ahayd in isbeddel yimaado oo haddii doorasho ay dhici weyso oo si nabadgelya xilku ku wareegi waayo inuu jiro heshiis siyaasadeed oo saamilada siyaasaddu intay isugu yimaadaan dadkii xilka iyo ammaanada hayay la yiraahdo maadaama doorasho dhici weysay muddo kooban oo heshiisa la idin siinayaa oo doorashada ku dhacdo awoodiinana la isla ogyahay laakiin nasiib darro arrintaasuna ma dhicin doorashadii waa dhici weysay heshiis siyaasadeed dadkan kusii joogaanna ma jiro sidaa daraaddeed waxay ku joogaan xaaraan iyo sharci darro. way hadda madaxweyne Farmaajo ma yahay madaxweyne sharci ah mise madaxweyne waqtigiisa dhamaaday oo si dadkii aaminsan yihiin dictatornimo iyo wax ku joogo xarunta madaxtooyada. madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo muddaxileedkiisii dastuuriga ah waa dhamaaday inuu wadanka hadda madaxweynimada xilka madaxweynaha sii hayana waa sharci darro oo dadka bahda sharciga taqaana iyo bulshooyinka Soomaaliyeed kulli wada og yihiin maadaama uu muddadiisii xileedkiisii dhamaatana uu garan waayo xataa inuu heshiis siyaasadeed ku sii joogo sharci darro ku joogaa dictatoriyad buu ku joogaa xoog buu ku joogaa waana arrin runtii aan marnaba sax ahayn oo bulshada Soomaaliyeed aysan aqbali karin. waxaana rajaynayaa mustaqbalka in lagula xisaabtamo sharci darrada uu wadanka u horseeday. haddii Farmaajo dalka doorasho u jiheen waayo maxaa dhici kara. dabcan waxaa dhici kara khilaafku inuu sii ballaarto
inuu iskahorimaadku sii ballaarto in hay-adaha hadda jira lala shaqayn waayo oo maamul goboleedyada qaarkood la shaqayn waayaan oo siyaasiyiintu la shaqayn waayaan oo isqabqabsigu sii socdo oo khatar badan timaado oo xasilooni darro siyaasadeed timaado amni darro timaado waayo qof sharci darro leh wadankan ku haysanaya cid aqbalaysa ma jirto shacabka Soomaaliyeed ma aqbalay mudaharaadyo inay soo bataan marka khatar badan baa jirta haddaan arrinta hadda si degdega ama doorasho loo gelinin ama heshiis siyaasadeed oo lagu xalaalaynayo joogitaanka madaxweynaha iyo xukuumadda muddaxileedkeeda sharciga ahaa dhammaaday inay khatar aan wajahayno qof walba waa ogyahay waayahay sidee u aragtaa dibadbaxyadii madaxdii ku jireen ee la rasaasay arrintaas waa arrin gaboodfalaha ahayd arrin sharci darra ay ahayd arrin xadgudub ay ahayd dad mudaharaaday oo weliba dad mas-uuliyiin ah oo la yaqaano oo waddanka xeel sare ka soo qabtay in la xabadeeyo oo la weeraro oo dad dhallinyaraa lagu laayo arrintaas sax ma ahayn dembi bay ahayd waana arrin aan la aqbali karinin waa in xorriyaadka dastuurku uu dadka shacabkaa siiyey iyo muwaadiniinta la ixtiraamaa haddii la ixtiraami waayo fawdadii dowladdu waa bilaabaysa violencegii amase wixii dagaalkii dadku ka maadanayeen haddii dowladdu bilowda maxaad sugaysaa inay arrintaasu dadkuna u diyaar garoobaan oo aan iska dhicin yidhahdaan baa imaanaysa marka waa in laga hortagaa in waddanku fawdo aado in la isxabadeeyo marka ciidamaduna waa muhim arrintaas in ciidamadu ay og yihiin inay daacad u yihiin dastuurka haddii madaxweyne muddaxileedkiisii dhammaaday oo sharci darro ku joogo oo ciidankii dalka dadkii siyaasaddu kala dhexaysay u adeegsanayo arrintaas arrin la aqbali kara maahan ciidamaduna waa inay ka waantoobaan waxay loo dhaariyey waa dastuurka waxaa la rabay inay daacad u noqdaanna waa dastuurka waana inaan loo adeegsan shacabkoodii in uu ku laayo nin siyaasiyiinta kasoo horjeeda raba inuu caburiyo ama shacabka raba inuu caburiyo waayahay sidaas si ka duwan ayaa loo wajihi karay ma is leedahay ka musharaxaan adiga dabcan sida ugu wanaagsan oo loo wajihi karo xukuumadda iyo madaxweynaha muddaxileedkeeda u dhammaaday waa mudaharaad oo sharci ah haddii mudaharaadka la caburiyo oo ciidankii dowladdu ahayd dadkan shacabka inay ilaaliyaan in la isku dayo in lagu caburiyo dabcan khilaafkaa sii ballaaranaya shacabka gadoodkoodaa sii badanaya khatarta dadku iyo mustaqbalka waddanku wajahayaan baa sii ballaaranaysa marka ciidamadu waa inay mar walba ka digtoonaadaan in loo isticmaalo shacabka caburintiisa waayahay madaxweyne farmaajo madaxweynihii xil ku wareejiyey iyo madaxweynihii kasii horreeyey iyo ra-iisul wasaarihiis intaba in rasaas uu adeegsado noolnool weliba qaarkood ay ku sigtaan in rasaastii ay ku dhintaan hataa maxay u tahay indhaha caalamka hataa iyo sharaf ahaan waxay waddankao dhan bay sumcad darro ku tahay waxaa muuqanaysa waddanka inuusan sharciyadiisii la ixtiraamaynin waxaa caddaanaysa in dictaatoriyad iyo cudud xoog ah dadkii shacabka ahaa iyo siyaasiyiintii kasoo horjeeday loo adeegsanayo taasina wax la aqbali kara maahan waxay ku tahay ceeb dowladnimada Soomaaliyeed waxay ku tahay ceeb shacabka Soomaaliyeed waa arrin gaboodfal ah lamana aqbali kara arrintaas inay dhacdo waayahay sidee isleedahay marka in looga bixi karo xaaladda cakiran ee dalka iminka u wajahay arrintaas waxa looga bixi karaa wixii muddo la dalbanayay oo ah doorasho inay dhacdo waa in si degdeg ah xaaladii doorashada ee laga wada hadlayay muddada dheer la soo gabagabeeyaa oo la soo afjaraa dadkuna doorasho aadaa xor oo xalaala oo la aqbali karo caqabadaha sida joogtada ah oo madaxweynaha muddaxileedkiisii dhammaaday uu doorashada ku hayana waa inuu joojiyaa mustaqbalkiisa iyo masiirkiisa iyo sharaftiisa waxay ku xiran tahay wixii dadkan ku heshiiyeen inuu ixtiraamo doorashadii in si xor oo xalaala loo galo oo caqabada ka daayo wixii la tabanayo oo dadka la tartamaya asaga ay tabanayaan si tartanku xor iyo xalaal u noqdaan waa in la tixgeliyaa oo la aqbalaa oo wax laga bedelaa madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo wuxuu inta badan ku celishaa in tanasulaad uu sameeyo dadkii dalku u tanasulo dhowr shir uu ku baaqay hataa weli aan suuro gelin ma jirtaa in tanasulkaas madaxweynaha uu sameeyo wallahi anaga tanaasul uu suubiyey oo aan hadda dhihi karo tanaasulkaas uu sameeyo uma jeedo waxaan u arkaa inuu yahay caqabada ugu weyn oo hortaagan doorashada wax tanaasul hadda uu sameeyaan ognahna ma jiraan waxa ayaan daraa marka in madaxweynihii beenta ka xishoon waayo wax aan sax ahayn uu dadkii maalin walba la taagan yahay inuusan shacabkiisaba awood u lahayn inuu la hadlo oo u sheego aragtidiisa iyo rabitaankiisa iyo wuxuu rabo isagoo hadlaya mar golonka ugu dambeysay maanaan arag baa soo hadlaya waayahan o dhan marka nin mu'aamarad ka shaqaynaya oo inuu waddankan xoog ku sii joogo oo wakti dhumis uu u isticmaalo taatiiga doorashada si uu u diyaar garoobo ciidan u diyaarsado wuxuu dadka ku cabirin lahaa u diyaarsado u muuqanaya haddii uusan aqbalinin doorashada in la galo wixii la tabanayay oo dadka la tartamaya ay tabanayeenna uusan aqbalin si xal loo gaaro dadka Soomaaliyeed waxaa fara ba'an ku haya
cudurka halista COVID-19 oo maalintii 30 ilaa 25 ayaa la diiwaan geliyay in u geeriyoonay inta aan la ogeyn ka sii badan dawladdu sida la rabo ma wajahday mise siyaasad waxyaabo la mid ah ay ku mashquulsantaa dawladda arrintaas si la rabay uma wajihin waa ku fashilantay baan oran karnaa waxaba yaraatay ay ka qabatay arrintaas in shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho ay wax ka qabatay nooma muuqato wacyigelin haba yaraatee oo dawladdu suubisay oo caam ah ma jirto in dadku kala fogaadaan in sanxir la sameeyo in maalihii la marayay iyo isku dhaqi iyo wixii la sameeyo in maadaama uu baalkii soo batay meelaha dadku isugu yimaadaan faraha badan la xiro sida jaamacadaha sida iskuulada sida meelaha dadku ku kulmaan oo la joojiyo wali ma jirto ama waxa la yiraahdo lockdown dadku sidii baa magaalada la isu dhaxyaacaya arrintaas dayacaad xoog leh ayay dawladdu runtii ka samaysay waana ku dhaliilaynaa si weyn baan ugu dhaliilaynaa waxyaabihii kaloo la rabay oo dadka cudurku ku dhaco lagula tacaali lahaana maba jiraanba cisbitaaladii sariirihii baa yar oxygen lama haayo ventilators ma jiraan maxaan ku yiraahdaa waxyaabihii kaloo loo baahnaayo supplies-ka ahaa ama se dadka shaqaynaya iyo ay ilaalinayeen lama haayo marka runtii marxaladan oo kaleeto waa dawladdu kaalinteedii waa maqan oo waxay ahayd in uu jiro fan gaar ah oo loogu talagalay in wax looga qabto corona cisbitaalada waaweyn waxay ahayd in warshado oxygen oo gaar ah ay leeyihiin maantayto waxay ahayd in hadda waa second wave wixii la oran jiray waa laba kaclayntii sida la sheegayana oo khubaradu ay sheegayso waxa laga yaabaa corona inuu sii jiro dhowr sano soo socota oo u diyaar garow xataa ma jiro marka runtii waxay u baahan tahay maadaama dawladda kaalinteedii ay gabtay shacabka ayaan waxaan ku baraarujinaynaa horta taxadarkii loo baahnaa kow inay la yimaadaan labo ganacsatada iyo culimada iyo dadka kaleeta ee maaragtay ururada bulshada inay isku yimaadaan oo lacag la raysgareeyo lacag la ururiyo si looga taxadaro wixii loo baahnaa oo dadka cudurkan ku dhacay dilay looga hortagi lahaana la diyaar gareeyo waayahay dhanka dawladda waan fahnay dhanka siyaasiyiinta iyo musharaxiinta iyagan maxaa door looga baahnaa in corona ay ka qayb qaataan doorka horta arrinta waxay u baahan tahay hoggaan bay u baahan tahay in wax looga tago hoggaantiina waxaa iskale dawladda iskale xukuumadda iskale inkastoo muddaxileedkeedii dhammaaday ayagaa weli meeshii jooga marka haddii hoggaankii dalka uu wax ka qaban waayey ama ku fashilmay ama uu haba yaraatee u dhaqdhaqaaqi waayey in arrintan wax laga qabto shacabka inay istaagaan oo hadda wax qabsadaan waay siyaasiyiintu dabcan shacabkay ka mid yihiin hadda xil gaara ma hayaan resource gaara ma hayaan dawladaha caalamka abiil uma samayn karaan si loogu soo gurmado marka run ahaantii siyaasiyiinta iyo shacabku hadda inay arrintaas u istaagaan baan anigu soo jeedinaya caalamka waxaa jira tallaalkii xataa dawladdeenu inay dalbatay iyo wakti uu imaanayo iyo xaaladiisu meeshay marayso wax shacabka u sheegaya ma jiraan marka meeshaas dawladdu arrintaas waxaan leenahay waa ku fashilantay waa ku ceebowday laakiin weli kaalin baa u bannaan inay hoggaamintii la yimaadaan iyo wax ka qabadkii waayo arrimaha doorashooyinka dib ugu laabanaynaa ma isleedaha arrimaha doorashooyinka waxaa jira maamul goboleedyada iyaga naftirkooda majaraha ku dhegan in doorasho dalka ay ka qabsoon maya ma qabo ayaan darrada jirta waxa weeyaan madaxweynaha muddaxileedkiisii dhammaaday maamul goboleedyo waxaa jira isaga uu samaystay oo uu corruption iyo laaluush iyo lacag ku samaystay dadka hoggaamiyana aysan matalinin dadkooda iyo degaanadooda iyo danahooda laakiin ay madaxweynaha muddaxileedkiisii dhammaaday daacad u yihiin oo cod aysan lahayn oo aysan waxba diidi karin iyo maamullo ayagu uusan asagu samaysan oo difaaca wixii aragtidooda saxa ah iyo danaha degaanadooda iyo danaha dadka ay matalaan marka runtii cid gaar ah oo diidan oo leh doorasho ma dhacayso mana arag laakiin in doorashadii loo dhigo ama loo maamusho si u danaynaysa oo ugu badinaysa madaxweynaha muddaxileedkiisii dhammaaday laga hor yimaado waa sax ninka ka hor yimaadaan ammaan ba kuleeyahy oo yihahda cadaalad baan rabnaa doorasho xaqaan rabnaa doorasho xoraan rabnaa doorasho la aqbali karaan rabnaa ceeb maaha inuu dalbado hal maamul xataa keligiis oo yihahdo waxaan cadaalad ahayn oo dadka u cuntami karinin ma aqbalayn waa sax wey haddii inta kale ay ku daba faysho madaxweynaha xileedkiisa dhammaaday oo qorshihiisa khaldan oo boobka ah ay taageeraan waxaan ognahay madaxweynaha dhowr mar shir inuu ku baaqay inuu garow ku baaqay puntland ay soo celiyeen hadda muqdisho ku baaqay oo maanta lagu madalsanay inuu dhaco haddana dib uu dhacay yaa sabab u ah inuu shirkaas baaqdaan madaxweynaha dembiga iskale sababtoo dadka wax kala dhexeeyaan waa inaad la hadashaa
inta aadan wax ku dhawaaqin. marka inuu waxaas ku dhawaaqayo waxba ku carqaladaynaya maahane run kama ah dacanna kama aha, qof kastana waa garan karaa. marka runtii waxaan leenahay dadkii wax kaala dhexeeyeen iyo abaabulkii loo baahnaa iyo diyaargarowgii loo baahnaa adigoon samaynin, adiga inaad tiraahdo meel hebla lisugu imaana, dabcan saas maaha wuxuu say u shaqeeyaan. arrintu waxay rabtaa hogaamin, waxay rabtaa iska warqab, waxay rabtaa wada hadal, waxay rabtaa qorshe la isla ogyahay. ayaga wuxuu dhan la isla ogyahay in adigu keligaa inta warqad iska soo saarta tiraahdo berri baa lasu imaanaya, de yaa kula ogba, yaa u diyaar garoobay, yaa ka warqaba, say ku dhicisaa. marka qorshe kaleu kelayaa, dan kale meel kale wax ka carqaladaynaya maahane ujeedadooda ma ahayn in laysu yimaaday u muuqanaysaa. marka dhaqankaas lala yimaado. waayahay doorka maamul goboleedyada u bannaan maxay tahay marka shanta maamul goboleed? maamul goboleedyadu doorka u bannaan maadaama doorasho dadban la gelayo, heshiiskii doorashada dadban lagu geliyey bay qayb ka ahaayeen. maadaama lagu qabanayo maamul goboleedyada doorashada, waxay qayb ku leeyihiin hanaanka doorashada u dhacayso iyo habraaca doorashada. marka inay ilaaliyaan oo doorashada xor iyo xalaal inay noqoto kaalin bay ku leeyihiin. waxay leeyihiin guddi maamul goboleedka, guddi doorasho maamul goboleedka iyo guddi doorasho ah heer federaal. marka kaalinta maamul goboleedyada ee doorashadu way caddahay, heshiiskii 17 Sebtembar bayna ku qeexan tahay, waana muhim inay kaalintaas buuxiyaan si doorashadu xor iyo xalaal u noqoto. waayahay muqdisho waxaa ka dhacay dibadbaxyo, hadda waxaa la qorsheynaya dibadbaxyo kale. madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday dalka dhan ayuu madaxweyne ka yahay. maxaa diidaya in maamul goboleedyada kale oo ugu horeeyaan Jubbaland iyo Puntland in bannaanbaxyo ka dhacaan? maxaa muqdisho kusoo koobanaba? dabcan de hadda dadka mudaharaadaya waa reer muqdisho. in dadka kale ee solidarity-ga la sameynaya ama garab siinaya maamul goboleedyada ay mudaharaadaanna waa wax wanaagsan oo loo baahan yahay, oo anigu aan soo dhaweynayo shakhsiyan. laakiin waxay u baahan tahay abaabul in lala hadlo dadka maamul goboleedyada jooga oo la yidhahdo shacabku hana taageeran, ayaguna ha dibad baxeen. marka waxaan isleeyahay weli coordinationkii ama xiriirkii loo baahnaa baan la samayn maahane waa arrin saxa oo loo baahan yahay oo aan soo dhaweynayn. waayahay dibadbaxa maanta sabtida ah la filayo muqdisho ka dhaco, haddii kudladiina ma u diyaarsan tahay inay ka qayb galaan? may annaga kudladeeda inaan ka qayb galno uma diyaar garaysin, sababtoo ah tii hore oo aanu iclaaminay inaan ka qayb galayno oo la baajiyey nalama soo wargelin inaanu la baajiyey. ka qaybgalkeediina cidina nagama dalban, laakiin annagaa si aan garab u siino maadaama waxaa la difaacaya ay qadiyad guud tahay iyo xorriyaadka dadka iyo dimuqraadiyadda, laguna dalbanayo doorasho xor oo xalaal ah, loogana hortegayo dictaatoriyadda iyo sharci darrada lagu joogo xukunka, waxaan rabnay inaanu garab siino. laakiin nasiib darro annagoon nalaga talagelin baa la joojiyey oo aan u arkayna inay khalad tahay. cidina nama soo wargelinin, middaanna cidina nama soo wargelin oo nalagama dalban inaanu ka soo qayb galno. marka waxaan rabnaa annagu inaanu markaanu isleenahay waa ku habboon tahay dibadbax annaga iyo taageerayaashada noo gaara inaanu samayno. musharaxiinta iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda ee qodobada qaar ay ka soo baxeen, adiga kudladiina sidee u aragtaan? annaga qodobada qaarna waa soo dhaweynay, qaarna waa saluugin. in dhacdadii 19 February wixii dhacay laga wada hadlo, cudurdaar laga bixiyo si aysan caqabad ugu noqon geed sacadka doorashada, horta arrintaas waa soo dhaweynay. run ahaantii in doorashadii la baajiyana aad baan uga xumaanay. waxaan u arkaynay inaysan sax ahayn, loogana gol lahaa in culays lagaga qaado madaxweynaha iyo xukuumadda madaxweynaadkeedii dhammaaday. marka waxaan kaloo runtii saluugnay in arrimihii masiiriga ahaana aan miiska la soo saarin oo looga hadlin, sida doorashada, sida maaragtay madaxweynaadka xukuumadda iyo madaxweynaha uu dhammaaday laga yeeli lahaa. oo marka runtii lama dhihi karo dad isku yimid oo hadda wada hadlay waa xumayaan, laakiin waxaan saluugnay in tixgelimihii iyo arrimihii muhiimka u ahaa bulshooyinta Soomaaliyeed aan meeshaas looga wada hadlin. sida la rabay xukuumaddu ma u wadaa inay doorasho dhacdo, saluug ayaa jira? saluug xoog leh jira. xukuumaddu waxaan u aragnaa inaysan awood lahayn, ilka lahayn, madax bannaani lahayn, oo ay madaxweynaha madaxweynaadkiisii dhammaaday ku dhaaban tahay. marka haddii prime ministerku uu yeesho hogaamintii loo baahnaa, madax bannaanidii loo baahnaa, awooddii sax ahayd oo loo baahnaa, oo si madax bannaan oo u hirgelinaya doorashada waa soo dhaweynayna. laakiin maadaama aan aragnay dhaqankiisii, damaanad in loo baahan yahaan u malaynaya. waayahay beesha caalamka kaalinteeda bal ka war? beesha caalamkan horta weligii waa ka soo horjeednay beesha caalamku inay faragelin ku yeelato arrimaha Soomaalida, laakiin nasiib darro ayagii baa xilkii la wareegay sida muuqata, ayagii baa isku raadinaya siyaasiyiinta Soomaalida, maamul goboleedyada iyo madaxweynihii, ayagii baa dadkii casumaya, ayagii baa u kala dab qaadaya, ayagii baa u safraya.
eedaasna boqolkiiba boqol aan waxaan saaraya madaxweynaha muddaxileedkiisii dhammaaday oo ku fashilmay hogaamintiisii, oo ku fashilmay inuu dadkiisii la heshiiyo, oo ku fashilmay inuu daba heshiisiin u sameeyo dadkiisii, oo ku fashilmay inuu walaalihiis wax la wadaago. marka arrintaas ceeb bay ku tahay dadka Soomaaliyeed, magacdhac bay ku tahay iyo sharafta dowladnimada Soomaaliyeed. waxaan leenahay arrintaas arrin la aqbali kara maahan. shacabka Soomaaliyeed waa inay diidaan oo yidhaahdaan safiirada Soomaaliya u jooga caalamka inay siyaasiyiinteennii iyo hogaamiyaasheenii iyo madaxweynihii aan xilka u dhiibanay ku dhex jiraan oo ayagii xataa hadday heshiin waayeen Soomaalida inuu yartaan bay. marka madaxweynaha dhaliilo badan oo fara badan oo hogaamintii uu ku fashilmay ayaa miiska u saaray. waayahay madaxweyne Farmaajo in nabadoonnimada uu sheegay markii uu ololaha soo galayay ma ka muuqataa oo aawa nabadoonnimada uu sheegay mise waxaa ku fiicnaan lahayd asaga in la weydiiyey, laakiin annaga waxaan qabnaa meeshii nabadoonnimo laga sugayey bilcagsigeedii buu noqday. dictator wuxuu noqday leh wadada anu aan raba haddii la waayo waxba ma soconayaan. rabitaankiisu ka muhiimsan yahay nolosha iyo maaragtay mustaqbalka shacab weynaha Soomaaliya. waxaa la sheegay in doorashadu Axmedoobi iyo madaxweyne Farmaajo isku hayaan arrimaha gado iyo waxyaabo lamid ah oo 16 kursi ah. sooma mudneen in si un looga gudbo si doorashadan iyo waxyaabaha isku xandiban looga gudbi lahaa. dabcan in laga gudbo caqabadaha jira waa kulligan waa jecelahay, waan rabnaa, waana taageersanahay. laakiin caqabadaha la abuuray, caqabadaha gobolka gado Farmaajo abuuray, madaxweynaha muddaxileedkiisa dhan abuuray. in uu maamul goboleedkii deegaanadii qaar inta ka qabsado asagoo xujo ka dhigo, arrintaas waxaan u arkaa arrin runtii maaragtay madaxweynaha muddaxileedkiisii dhammaatay uu asagu sameeyey oo uuna rabay inuu ku carqaladeeyo doorashada, kusii dheeraystay cimrigiisa inuu sii joogo xukunka sharci darraa. in marka dadkii arrintaasi khusaysay ay ka hadlaan oo ka doodaan oo xal laga gaaro, waxaan u arkaa sax inay tahay, si uusan madaxweynuhu ugu naaloonin inuu asagu 16 qof asagu u codayso u soo qoran. adiga siyaasi ka soo jeeda gobolka Banaadir ayaa tahay, gobolka Banaadir 16 kursi aqalka sare ayaa loo asteeyay, welina ma jirto matalaad sax oo la siiyay email looga hadlo, xitaa shirarka gobolka Banaadir uu ka qayb galo weli laguma soo hadal qaadin. sidee la rabay in loo wajo? horta arrintaas waa arrin ayaan daraa in gobolka Banaadir uusan xuquuq ku yeelan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. waxay arrintaas dambi laga galay gobolkan oo ay ka galeen mas'uuliyiintii ka horreysay madaxweynaha hadda muddaxileedkiisii dhammaaday. in aysan maamul madax bannaan yeelan oo ninka yimaadaba uu nin asaga u adeega u magacowdo, ayaduna waa dembi kale oo dadka magaaladan iyo gobolka Banaadir ku dhaqan laga galay. arrintaasi marka in looga faa'iidaysto oo nin siyaasi uga faa'iidaysto asagoo dan leh inuu taageero u helo, inuu kuraas asagu inta soo niyeysto uu yiraahdo kuraas baan idin siinaya, horta sax maaha. dowladnimadu waxay ku dhisan tahay sharci. maadaama ay dowladnimadu sharci ku dhisan tahayna waxaa la rabaa qaab kasta oo wax lagu saxayo ama wax lagu bedelayo ama wax lagu soo kordhinayo inuu waddo sharciga soo maro. dastuurka waxaa ku qoran aqalka sare inuu yahay 54 xildhibaan. ayadoo marka 54 dastuurka ku qoran tahay, adiga ma dhihi kartaa 11 baan ku daray? maya, baarlamaanku wax dastuurka lid ku ah ma sharciyeyn karo. waxaa la yidhaha unconstitutional sharci, unconstitutional sharci lid ku ah dastuurka baarlamaanna ma ansixin karo, qaalina ma ansixin karo, waa khalad. marka in loo isticmaalo masiirka ummadda siyaasad ayadoo la rabo kursi in lagu tago ama lagu adeego taageero lagu helo ku meel gaar ah, horta arrin saxa maaha. waxaa la rabaa xasiloonida iyo isfahamka iyo mustaqbalka bulshadu wuxuu ku xiran yahay in wax walbaba nidaam sharciga loo maro, nidaam sharciga ay ku soo baxaan dib loogu. markaan waxaan qabnaa waxaa arrintaas in dib loogu laabto, qaabkii wax loo wadaagay dib loogu laabto, aqalka sare qaabkii loo qeybiyey dib loogu laabto, oo wax Soomaaliya oo dhan ku wada qanacsan tahay ay soo baxaan, oo xukuumadda dambe soo socota ay waxaan dib u habeyn ku samayso. shanta maamul goboleed iyo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxaa la gudboon asaga si doorasho xor iyo xalaal dalkan ay kaga qabsanto? horta maamul goboleedan waxaan leeyahay waxaa la gudboon sidaa rabtaan ku imaada meesha hadda, laakiin mas-uuliyiin xil muhiim ah u haya bulshada Soomaaliyeed baa tihiin. waxaa idinla gudboon marka inaad sharciga dhowrtaan, inaad cadaaladda dhowrtaan, inaad ummaddan danaheeda dhowrtaan, inaad mustaqbalkooda difaacdaan ee aydan shaksi u noqonin daacad, oo dalka daacad u noqotaan, sharciga daacad u noqotaan. waxaa kaloo la gudboonaan ku dhiirigelinaynaa oo hadday sameeyaanna taariikh wanaagsan u noqonaysa inay doorashadu inay dhacdo taageeraan oo ay yidhahdaan doorasho xor oo xalaala oo loo dhan yahay waa in oo wadar ogola waa inay dhacdaa oo qayb ka noqdaan. anna waxaan qabnaa madaxweynaha muddaxileedkiisii dhammaaday ma dhiiran lahayn haddii maamul goboleedyada qaarkeed aysan garab ku siinaynin waxyaabaha caqabadaha ah ee doorashada hor dhigay.
marka waxaan leenahay walaalaheen mas-uuliyiintaahi shacabka dantiisa ka shaqeeya, wadanka xasiloonidiisa iyo mustaqbalkiisa ka shaqeeya, garab siiya doorasho xor xalaal inay dhacdo. waayahay madaxda Jubbaland iyo Puntland ay laf ahaantooda waxay dadka qaar ay qabaan in caqabado ay ku yihiin doorashada loogana baahan yahay tanaasul fara badan. ma isleedahay iyaga laf ahaantooda in waxay badan ay ka tanaasulaan shacabka Soomaaliyeed dartooda ay loo baahan yahay? wallahi aniga hadda xoogaal baanahay inta aan la socdana caqabado ama shuruudo ay soo dhigoon oo leeyihiin shuruudahan haddaan la gelin doorashadu ma dhacayso uma jeedno. waxa lagu garnaqsanayana waa wax markaanu islaanahay gar ah in guddiga doorashada laga saaro dad dowladda u shaqeeya iyo taageerayaasha madaxweynaha maaragtay xilli muddaxileedkiisa dhammaaday waa arrin garah wey. mogta waayo ila ninka garsooraha oo dadka u garsooraya haddii uu nin gaara u xaglinayo ma noqon karo cadaalad meesha kama muuqanayso, xor iyo xalaalnimadii waa shaki gelaysa. in gobolka Gedo kuraastiisii madaxweynaha muddaxileedkiisa dhammaaday uu yidhahdo anaa soo qoranaya cid kala taaban mayso, arrin garab maaha. in gobollada waqooyi kuraasteedii la yidhaahdo iyo maaragtay xildhibaanadeedii xukuumadda muddaxileedkii dhammaaday madaxweynaha muddaxileedkiisa dhammaaday baa soo qoranaya, arrin garab maaha. marka intaas waxaan ahayn oo shacabka Soomaaliyeed oo dhan ay og yihiin inaysan cadaalad ahayn maahane wax gaara ama shuruudo gaara oo danaho ayaga ay wataan oon ognahay ma jiraan. marka maxaa marka ii sheega oo waxaad tirahdaan qodobkan bay ku caqabad ugu yihiin doorasho inay dhacdo, ma ogaani. waayahay gabagabada waraysiga aan soo gaarnay waxaan ognahay musharaxiinta dalkeena u tartama inta badan wadamo qaara wataan, qadaraa wadataa maqlay, imaaraada wataa maqlaysa. Cumar Cabduqaadir asaga waa musharax madaxweyne, xagee laga wataa asaga? aniga runtii horta siyaasi hore maahi oo xiriir la leh wadamo ajnabiga. waxaan ahaa ganacsada waddankan ka shaqaynayay 20 sano u dambeysay, bulshada Soomaaliyeed ku dhex jiray, ganacsateedana ku dhex jiray. aniga marka goolkayga iyo waxyaabaha aan rabo inaan gaaro waxaa ka mid ah siyaasadayda iyo barnaamijkayga shacabka Soomaaliyeed inay taageeraan, gaar ahaan ganacsatada Soomaaliyeed. marka waxaan ugu bashaaraynaa shacabka Soomaaliyeed aniga waddan ajnabi ah oo wata ma jiraan, waddan ajnabi oo xiriir gaara la leeyahay ma jiro. danta Soomaaliyeed inaan difaacaan siyaasadda u soo galay. waxaana rabaa in shacabka Soomaaliyeed ay taageeraan kambeynkan iyo aragtidan cusub oo aan islaanahay maanta waxay Soomaaliya u baahan tahay hoggaan cusub, aragti cusub leh, fikir cusub leh, fahamsan wixii Soomaaliya ay soo martay, caqabadaha jirana si hoose uga warqaba oo wax ka bedeli kara mustaqbalka dalkan. marka dadkan ka rajaynaya runtii inay taageeraan kambeynkayga waa ganacsatada Soomaaliyeed iyo dadweynaha Soomaaliyeed, ayagaana daacad u noqonaa insha Allah tacaala. waayahay ugu dambeyn marka maxaad kusoo gabagabayn lahayd? ugu dambeyn runtii waxaan kusoo gabagabayn lahaa waxaan rajaynaynaa oo ilaahay ka rajaynaynaa inay doorasho xor oo xalaal ah noo qabsoonto muddo dhow, waddankana xukunkiisu si nabadgelyo ah uu ku wareego. waxaan leenahay marka shacabka Soomaaliyeed kambeynka aan wato oo anigoo ah Cumar Cabduqaadir Axmed Fiqi inaad taageertaan, inaad soo dhaweysaan, inaad aragtaan fikirkayaga oo aad nala sheergaraysaan oo aad wadaagtaan. wixii hore wax ka duwan baan rabnaa, wixii hore wax ka gedisan baan rabnaa. waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed inaan u horseedno dowlad wanaag, cadaalad, ammaan iyo inaan wax badan ka bedelno dhaqankii hore siyaasiga ahaa oo Soomaalida lagu yaqiinay, oo mar walbaba aan noqono waddanka ugu corruption-ka badan caalamka. arrintaas waa inaan ka guurnaa. waxaan nahay dad muslina, waxaan leenahay dhaqan wanaagsan oo Soomaalida lagu yaqaanay. waxaan rabnaa marka inaan isbedel ku samayno mujtamaceenna iyo dadkeenna iyo dowladnimadeenna oo aad nagu taageertaan. aad baad u mahadsan tahay. kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha kudladda musharaxiinta dhexdhexaadka ahna musharax madaxweyne Cumar Cabduqaadir Axmed Fiqi. aad baad u mahadsan tahay musharax.